Kenya ayaa qiratay markii ugu horeysay in burbur dhaqaale oo xoogan ay kala kulantay qaadka ay u dhoofin jirtay wadanka Soomaaliya oo horay ay u joojisay dawladda dhexe ee Soomaaliya. gudoomiyaha iskaashatada qaadka gobolka Meru ee wadanka Kenya Kimasi Manjuru ayaa sheegay in halkii maalin oo kaliya Muqdisho ay u iibgeyn jireen qaad ku kacaya adduun lacageed oo u dhaxeeya $250,000 ilaa $400,000 taasi oo uu sheegay in mararka qaarna ay gaari jirtay $5 milyan. wuxuu sheegay in iminka ay fursadaasi meesha ka baxday oo ay iminka shaqo la'aan la daaladhacayaan dad ka badan 500,000 oo qof oo Kenyaana oo ka shaqayn jiray gurista qaadka ka baxa gobolka Meru ee wadanka Kenya kuwa soo rara iyo kuwa daabula oo uu sheegay in ay dhaqaale fara badan ku qabeen balse tan iyo markii la hakiyay uu dhaqaalahaasi meesha ka baxay. waxa kale oo gudoomiyaha iskaashatada qaadka wadanka Kenya uu sheegay in tani xitaa ay saameysay canshuurtii ay heli jirtay dawladda Kenya. wuxuu ka dalbaday dawladaha Soomaaliya iyo Kenya inay sida ugu dhaqsaha badan ay ku soo celiyaan qaadkii loo beecgeyn jiray Soomaaliya. ganacsato badan ayaa shaqo la'aan ku noqday qaadka wuxuuna sheegay in xitaa ay tani saameynayso ganacsatada Soomaalida ah ee qaadka ka ganacsan jiray. hadalka gudoomiyaha iskaashatada qaadka wadanka Kenya waxa uu imaanayaa iyada oo dawladda Soomaaliya ay go'aan ku qaadatay in la joojiyo ku dhawaad 30 diyaaradood oo si joogto ah Soomaaliya u imaan jiray qaadna ka keeni jiray wadanka Kenya. hase yeeshee tan iyo markii qaadka la joojiyay waxa jiray tiro yar oo jaad ah oo si dhuumasho lagu soo gelinayay Soomaaliya sida ay sheegeen qaar kamid ah haweenka qaadka ka ganacsada ee Muqdisho. haweeney qaadka ka ganacsato oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in qaadku uu si dhuumasho ku yimaado isaga oo soo maray dekada magaalada Kismaayo. haweeneydaasi ayaa sheegtay in kolkii hore ay kiilada jaadka ku iibin jireen lacag u dhaxaysa $20 ilaa $25 balse hadda ay siistaan halkii kiilo $120. haweeneyda ayaa sheegtay in ay faa'iido ballaaran ay ku qabaan joojinta jaadka. warbaahinta gudaha Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in burburkan dhaqaale ee iminka soo gaaray Kenya uu noqon doono mid aan ka soo kabsasho lahayn maadaama uu si toos ah u burburi karo dhaqaalaha ganacsato badan oo Kenyaana oo ku tiirsanaa Soomaaliya kuna xirnaa qaadka loo beecgeyn jiray gudaha wadanka Soomaaliya. ganacsatada Kenyaanka ayaa iminka sheegay in dhibaatada laga dhaxlayo safmarka COVID-19 ay kaga daran tahay mid dhaqaale ee ka qabsatay qaadka ay u beecgeyn jireen Soomaaliya ee la joojiyay. Kenya ayaa muddo dheer faa'iido ballaaran ka helaysay ka ganacsiga qaadka ka baxa dalkeeda ee ay u soo dhoofin jirtay Soomaaliya. hase yeeshee suuqa Kenya ayaa mar qura burburay markii ay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday in la joojiyay jaadkaasi oo aan wax faa'iido ah ugu jirin dhinaca Soomaaliya.